Asalaamu calaykum asxaabta, halkan waa Saciid Madaale Sports. Waxaad kusoo dhawaataan wararkii u dambeeyay ciyaaraha. Casemiro oo soo jeedin ka helay Inter Miami ayaynu fiirin doonaa. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Casemiro ayaa helay soo jeedin ka timid Inter Miami sida warbixinta ugu dambeysay sheegtay. Defensku waa inay sugaan ilaa iyo Abriil 13 si ay mar kale u bilaabaan ololahooda Premier League, inkasta oo yaraanta kulamada ay si layaab leh u kordhisay fursadahooda ay ku heli karaan boosaska Champions League sanadka dambe. Kooxda Michael Carrick ayaa ku jirta kaalinta saddexaad ee jadwalka kadib barbaro ay 2-2 ay la galeen Bournemouth ka hor fasaxii ciyaaraha caalamiga ahaa. Waxay 7 dhibcood ka horeeyaan kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Xiddiga sida Casemiro ayaa si weyn uga faa'iidaystay jadwalka yaraaday, balse inkasta oo taageerayaashu ku faraxsan yihiin qaab ciyaareedkiisa, ugu dambeyn waxaa la filayaa inuu ka tago Old Trafford si bilaash ah dhamaadka xilli ciyaareedkan. Khabiirka suuqa kala iibsiga Fabrizio Romano ayaa sheegay in Inter Miami ee Lionel Messi ay la xiriirtay ciyaaryahanka reer Brazil, iyadoo 34 jirkaan uu sidoo kale haysto dalabyo ka imaanaya Sacuudiga iyo Yurub. Suuqa kala iibsiga xagaagan, Michael Carrick oo wajahaya dib u habeyn khadka dhexe ah. Bixitaanka Casemiro ayaa kooxda uga tagi doona kaliya 2 ciyaaryahan oo dabiici ah ee khadka dhexe, kuwaas oo kala ah Kobbie Mainoo iyo sidoo kale Manuel Ugarte. Inkastoo kan dambe uu si joogto ah u dhibtoodo marka uu ciyaarayo, Bruno Fernandes waxa uu leeyahay khibrad uu ku ciyaaro meelaha hoose ee khadka dhexe, balse waxa uu aad ugu raaxo badan yahay inuu ka ciyaaro booska lambarka 10aad, waxaana habboon in loo isticmaalo double pivot kaliya marka aysan jirin doorasho kale. Abuuraha ciyaarta ayaa isna ahaa bartilmaameed xiiso ka yimid Sacuudiga, sidoo kale waxaa hore looga xiray kooxo waaweyn oo Yurub ah sida Bayern Munich. Fernandes waxa uu qandaraas kula jiraa Red Devils ilaa iyo xagaaga 2027, mana aha inay taageerayaashu u qaataan in 31 jirkaan uu sii joogi doono Old Trafford xilli ciyaareedka dambe. Immisa ciyaartoy oo khadka dhexe ayay tahay in Manchester United ay soo iibsato? United waxay diiradda saartay weerarka xagaagii 2025 iyadoo ay keeneen Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, sidoo kale Benjamin Sesko, balse waa inay xoogga saaraan khadka dhexe. Suuqa kala iibsiga ee soo socda, Elliot Anderson, Carlos Baleba iyo sidoo kale Adam Wharton ayaa si joogto ah loola xiriiriyay u wareegidda United, inkastoo saxiixa 2 ka mid ah 3-dan ay noqon karto mid aan macquul ahayn. Haddana kooxda waxay u baahan doontaa ugu yaraan 2 ciyaaryahan oo waayo arag ah si ay u ahaato mid tartan ku jirta xilli ciyaareedka soo socda. Haddii Fernandes uu baxo xagaagan, Red Devils-ku waxay isticmaali karaan Cunha boos sare oo ka dambeeya Sesko, balse markaas waxay u baahan doonaan inay soo iibsadaan weeraryahan kale. Saaxiibayaal, waad mahadsantihiin. Aragtidiina ama fikradiina nagu soo biiriya commentiga haddii ciyaaryahanka reer Brazil Casemiro uu ka tago Manchester United ay noqon doontaa, isagoo aan ognahay Casemiro inuu usoo ciyaaray kooxooyin waaweyn Real Madrid iyo sidoo kale Manchester United oo ay ka mid tahay, balse wuxuu jeclaan lahaa inuu ka tago xilli ciyaareedka sanadkan sida warar badan oo ugu dambeeyay ay bilahan ay soo baxayeen. Saaxiib, fikradaada commentiga inoo reeb. Waa mahadsantahay. Ilowina subscribe saarto, like videoga aadna share gareyso. Waad mahadsantahay.